السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا موضوع عنو مقعدري عدالة إسلامك دينتين إسلامك وحي كسو نيسانتاي سيدي دابا عدالة هذا بقصة مانتا عدالة إنو تصالحان وقصو قادن إنو أيا وحيد عضي حلقي وخليفة وها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا حلقا وصحابي ويناي عمرو بن عاص وأميركا كان نقضي دالك مصر دالكاسينا وحا كنول داد آميسان دينتا كريستنكا أو قبطيين ليرادو إنكستو المسلمين تو أيو بديهين دادكا قبطيين تيكون نول دالكاسي مصرنا waxay dhaqan ahaan u leeyihiin xilliga tartanka fardaha iyagoo markaasi meel fagaaro isugu yimaado oo tartan sameeya hadaba maalmaha kamid ah wiil uu dhalay amiirka Masar waa Amr ibn Aas ayaa tartan la galay nin qibti ah waana laga guuleystay oo waxa guuleystay ninkii qibtiga ahaa hadda wiilka amiirka uu dhalay inta uu xanaaqay ayuu ninkii ka reeyay qibtiga ahaa karbaashkiisa uu watay madaxa uu kaga dhuftay isagoo leh ma aniga oo qoys sharaf leh oo waliba in amiir ah ayaad markaa iga guuleysanaysaa nabar ayuuna ku dhuftay ninkii qibtiga ahaa walow uu kristan ahaa haddana wuxuu aaminsanaa ama uu ogaa cadaaladda islaamka wuxuuna u dacwooday amiir almu'miniin Umar bin Khattab radiyallahu anhu oo Madiina ku sugan wuxuuna tagay magaalada Madiina sayidina Umar radiyallahu anhu markii uu kiiska dhageystay warqad ayuu amiirka Masar waa Amr ibn Aas uu soo qoray wuxuuna warqada uu ku yiri warqadeeda haddii ay subax ku soo gaarto galab soo dhaqaaq haddii ay galab ku soo gaartana subax soo bax adiga iyo wiilkaaga degdegna igu imow magaalada Madiina amiirka iyo wiilkiisa magaalada Madiina ay yimaadeen wuxuuna amiir almu'miniin Umar bin Khattab radiyallahu anhu uu yeedhay ninkii qibtiga ahaa ee dacwoonay ee tirsanay in lagu xadgudbay dadka ayuuna isugu yeeray markaas uu ku yiri dadka hortiisa sida uu kugu dhuftay ugu dhufo wiilka uu dhalay amiirka wuuna ku dhuftay markaas uu haddana yiri aabahana bidaarta ugu dhufo ayuu ku yiri markaas uu ninkii qibtiga ahaa yiri amiir almu'miniin muxuu amiirku igu sameeyay wuxuuna sayidina Umar bin Khattab ugu jawaabay wiilkiisa wuxuu isku haleynaya kursiga aabihii waaye marka isaga ceebee sida uu wiilkiisa uu adigu ku ceebeeyay markaas uu amiir almu'miniin Umar bin Khattab ku yiri Amr goormaad bilowdeen dadka uu Ilaahay xornimo ku abuuray in aad idinku adoonsataan bal u fiirso cadaaladda islaamka halka ay mareysay iyo cadaaladda maanta dunida ka jirta waa nin kristan ah oo qibti ah oo ku dhex nool dawlad islaam ah oo waliba jizya laga qaado ama canshuur laga qaado oo amiirkii ama madaxweynihii dalka Masar oo dhan uu ku xadgudbay wiilkiisa oo looga gudayo amaba cadaaladda loo mirnayo wiilkii gafka geystay iyo amiirkii dhamaa ee dalka Masar dunida maanta aynu joogno waxay u baahan tahay cadaalad noocaasi inuu Ilaahay u soo celiyo cadaaladuna waxay gacantiisa ku jirtaa Allah subhanahu wa ta'ala balse waxa uu noo soo dejiyay diin islaam ah oo cadaalad ku dhisan mawduuca maanta ee cadaaladda islaamka aan ugu cadaray inta hayno joogo waa inoo qodob kale iyo channel keenani saadka aakhiro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh